xaaladda magaalada Raskamboni ayaa caawa degan kadib dagaal saacado badan socday oo magaaladaasi ay kula wareegeen maqribnimadii caawa ciidanka Jubbaland. dagaalka laba waji ayuu ahaa sida la soo tabiyay. wajiga koowaad saaka aroornimadii ayuu ka bilowday meel 12 kiiloomitir magaalada Raskamboni kaga beegan xagga magaalada Buurgaabo. dagaalkaasi waxa uu sababay in ciidankii Jubbaland ee maalmahanba lagu daadgureynayay deegaanada Buurgaabo ilaa iyo Kudhaa ay gaaraan halka loo yaqaano Odow oo ah halka uu ku yaalo ceelka biyaha magaalada ay cabto. dagaalkaasi wuxuu istaagay 1:00 duhurnimo Afrikada bari markii ay ahayd. dhimashiya dhaawacba labada dhinac way soo gaareen. haddaba dagaalkaasi markii uu istaagay kadib maxaa dhacay? Jubbaland ciidan cusub oo kii subaxii dagaalka qaaday aan ahayn ayay mar kale gelisay garoonka diyaaradaha iyo bartamaha magaalada oo aag cusub halkaasi looga furay. ciidankaasi dambe ee dagaalka bilaabay waxa la soo tabinayaa inuu ahaa ciidan cusub oo aan qayb ka ahayn kuwii subaxii hore dagaalka galay, waana ciidankii markii dambe qabtay gebi ahaan magaalada. haddaba maxaa dhacay? ciidankii dawladda federaalka ee Raskamboni joogay maalmihii la soo dhaafay waxay u qaybsameen dhowr qaybood. qaar u galay xadka dalka Kenya oo isu dhiibay ciidanka Kenya ee dhinaca Kenya ku sugnaa. sawirro laga helay dhinaca Kenya ayaana muujinaya ciidankii dawladda federaalka oo qoryaha dhulka dhigay gacmahana taagaya. ciidan kale iyagana waxa la sheegayaa in maxaabiis ahaan ay u qabteen ciidankii dawlad goboleedka Jubbaland ee magaalada qabtay maqribnimadii caawa. sawirro laga helay magaalada Raskamboni ayaa muujinaya maxaabiistaasi oo ay kor taagan yihiin ciidanka Jubbaland. dhimashada dagaalka maanta iyo xooggii uu lahaa isma lahan oo tirada dhimashadu ma ahan mid badan. dhaawacuna sidoo kale ma uusan noqonin sidii la filayay. waxaa jira dhaawac la soo qaaday oo isugu jira kuwa Jubbaland iyo kuwii ciidanka dawladda federaalka ee Muqdisho laga keenay. dhaawacaasi iyagoo hal doon wada saaran ayay Jubbaland keentay Kismaayo, waxaana caawa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Kismaayo. warar Kismaayo ka imanaya ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Jubbaland ay amar ku bixiyeen isla markaana la faray in ciidanka dawladda federaalka ee dhaawaca ah loola dhaqmo sida kuwa dawlad goboleedka Jubbaland ka dhaawacmay. hal isbitaal ayay ku wada jiraan, si wada jir ah ayaana loo dabiibayaa. sidoo kale ciidanka gacanta lagu dhigay ee Raskamboni jooga ayaa la dejiyay mid ka mid ah xerooyinka ciidanka ee Jubbaland ee caawa fariisimada ku samaystay buurta loo yaqaano buurta xuduudda ee ku taala dhinaca Raskamboni ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. saraakiisha ciidanka dawladda federaalka ee u tallowday dhinaca xadka Kenya waxaa lagu soo warramayaa inuu ku jiro Xasan Ciraaqi, taliyihii ciidanka Gorgor ee dawladda halkaasi ay geysay. sidoo kale waxaan war laga haynin meel uu ku dambeeyay Maxamed Fanax oo ahaa mas'uulkii dawladda Jubbaland u qaabilsanaan jiray deegaanadaasi, isla markaana ahaa ninkii dawladda federaalka ku wareejiyay magaalada Raskamboni. taliyihii ciidanka Harimacad oo isna lagu naanayso Fanax ayaan war laga haynin. Jubbaland weli isgaarsiintii Raskamboni ma aysan soo celinin, waxaana naloo sheegay inaysan doonaynin inay iska war helaan ciidanka dawladda ee magaalada lagu jabiyey oo qaar ka mid ah la aaminsan yahay inaysan magaalada ka fogeyn. waxaa la aaminsan yahay jabka ciidanka dawladda federaalka Raskamboni caawa ka soo gaaray inay dhowr arrimood sabab u ahayd. waa midda koowaade ciidanka dawladda federaalka oo dhowr isbuuc halkaasi joogay oo aan talis guud lahayn, isla markaana magaalada Raskamboni ay u ahayd wax walba halka ay ka difaacayaan magaalada, halka taliska u ah, iyo weliba iyagoo aanan haysanin isbitaal ay dhaawacyada geystaan. ayna ku adkaatay inay gurmad helaan maadaama markii horeba ay diyaarado ku yimaadeen. arrinka kale ee ka hiilisay ciidanka dawladda federaalka waxa weeyaan cimilada magaaladaasi oo aad u kulul, deegaanka oo aysan aqoon u lahayn, iyo weliba iyagoon helin meel ay u baxaan dagaalka markii looga adkaaday. dariiqa keliya ee u furnaana wuxuu ahaa inay xadka Kenya u tallaabaan iyo inay doomo kaga soo baxaan, taasoo markii dambe suurtagal noqon kari weyday. Jubbaland dagaalkan kama aysan hadlin, wax war ahna kama aysan soo saarin. inkastoo caawa maqribnimadii uu dagaalka soo dhamaaday
dowladda federaalka iyadana juuq iyo jaaq lagama hayo mashaqada ka dhacday magaalada Raskambonina su'aalo badan ayaa ka soo noqonaya oo ay ka mid yihiin cidda qaadanayso mas'uuliyad darrada guuldarradii magaaladaasi ka dhacday iyo in wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska guud ee militariga Soomaaliya ay dib isugu noqdaan isla markaana la helo qofkii mas'uulka ka ahaa magac xumadan ciidankii militariga dawladda Soomaaliya ka soo gaaray magaalada Raskamboni oo ay ugu horeyso in ciidan Soomaaliyeed ay xadka ka tallaabaan iyagoo tuutihii dawladda gashanna ay ciidan kale isu dhiibaan sidoo kale waxa ay siyaasadda u furaysaa albaab cusub maadaama sida hadda muuqata Jubbaland ay ku adkaatay dagaalkii gacan ka hadalka ahaa balse kii siyaasadda uu weli khilaaf ka taagan yahay oo irid cusub aysan u furmin wararka Raskamboni iyo waxa uu xaal birito noqdo waan idin la socodsiin doonaa